munaasabad ballaaran oo loogu baroordiiqayay Allaha u naxariistay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu geeriyooday Allaha u naxariistay Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda ee Somaliland halkaas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland golayaasha qaranka xisbiyada qaranka iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan munaasabadan oo loogu ducaynayay isla markaana lagu soo bandhigayay buugaag marxuumku qoray isla markaana lagu soo bandhigayay maasooyin badan oo marxuumku alifay ayaa waxa warbixinta warkaasi inoo haya wariyahayaga Cabdiraxmaan Fantastic munaasabadan oo si weyn ay u soo agaasimeen shirkadda daabacadaha xaysiisyada ee Sagaljeed iyo ururka dhalinyarada ee Somaliland Sonio oo lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay Allaha u naxariisto Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye ayaa habeenkii xalay lagu qabtay hoolka hay'adda shaqaalaha ee magaalada Hargeysa iyadoo munaasabadan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta sarsare saddexda xisbi qaran ee Somaliland wasiirro ka tirsan xukuumadda Axmed Siilaan iyo abwaano qorayaal xildhibaano carruurtii uu ka geeriyooday abwaanku iyo ardayda wax ka dhigata jaamacadaha magaalada Hargeysa iyo marti sharaf kala aad badan munaasabadan oo ahayd mid ay ilyarto isqabatay ayaa waxaa halkaasi lagu soo bandhigay laba buug oo lagu soo ururiyay suugaantii kala gedisneed ee abwaanku uu tiriyay ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay qoraaga weyne caanka ah ee Bob Yuusuf Ducaale Hurre Ibraahim Warsame Walaanka ah ee Bob Yuusuf Ducaale iyo Hurre Ibraahim Warsame Walaanwal iyo abwaan Yuusuf Shaacir abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Warsame gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalkan haya ee kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed iyo wasiirada wasaaradaha waxbarashada iyo duulista iyo hawada Samsam Cabdi Aadan Maxamuud Xaashi Cabdi iyo marti sharaf kala aad badan ayaa dhamaantoodba si qiiro weyn ugu dhaahneed uga warramay shakhsiyaadkii uu lahaa abwaanka weyn ee marxuum Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye oo ay ku sifeeyeen inuu ahaa adoon alla ka cabsi badan mar walbana ku fahmi jiray dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed jeclaana bay yidhaahdeen dalka iyo dadkiisa waxaana dadka reer Somaliland sidoo kale iyaduna waxa munaasabadaasi ka hadashay Hodan Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye oo ka mid ah afartii carruurta ay ifka uu kaga tagay marxuumku oo iyaduna si weyn ugu mahad celisay soo qaban qaabayaashii munaasabadan iyo waliba marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay munaasabadan lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay geeridii Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye gabagabadiina waxa munaasabadaasi lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay geeridii marxuum Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye soo xidhay gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee talada dalkan haya kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uxud Injineer Faysal Cali Waraabe oo dhamaantoodba si qoto dheer uga hadlay shakhsiyadii uu lahaa marxuumku xusuustan ku dhamaanayana abwaan Faysal Coroshtaag oo labadeeda macallin oo ahaa suugaantana ragga saamiye Gaariye ka mid ahaa markii aanu elementary ahayn waxa socotay xarakadii lagu eriyay Ingiriiska waxa socday xisbiga SNL iyo NUF iyo USP suugaan badan baa markaa jirtay Gaariye laba nin buu suugaantooda dusha ka hay markaan uu leeyahay kursi baa la saari jiray oo cumaadan jiray laba nin baa iskuulka u haysta gabayaasha markaa oo laba abwaano adag noqday markii dambe isaga iyo Cali Banfas ilaahay caafimaad siiyo uu jiifay waxa uu sanaya uu ka soo fikir karo shalay toddobaadkii ka fadhiya nin aan saaxiibna ahaa oo la oran jiray Axmed Cabdi Tacarba qalin jabiniyay la foole waan ka qayb galay ninkaas oo laba gooc cad laho afweyn meesha joog ka gabaya ayaa igu horeysay intii dambana de waa magaalada wada joogna xamaro waan isnaqaanay saayo sheegeen buu ahaa waxa uu dheeraa Gaariye wuxuu ahaa nin philosopher wuxuu ahaa nin revolutionary iyo waxa labadaba macna kelimo hay gabayaale nin halgamaayo ahaa Gaariye wax badan uu sheegay